Bismillahirrahmanirrahim. Waxaan halkan kugu soo bandhigayaa sida loo soo download barnaamij software-ka lagu duubo software-rada oo magaciisa la yiraahdo Camtasia. Camtasia ayaa Google ku qoraysaa, kadibna waxaad kicinaysaa linkiga ugu horeeya ayaad click siinaysaa. Linkigan ayaad click siinaysaa. Marka aad click siiso kadib waxaa ku soo kacaya meesha aad ka soo download gareey lahayd. Kani wuxuu ku siinayaa bil oo free trial ayuu ku siinayaa, kadibna waad gadanaysaa. Free trial ayuu ku dhufanaysaa, in yar aad sugaysaa, waxaad ku dhufanaysaa download Camtasia installer Windows. Markuu ku soo baxo kadib haddii aad isticmaalaysid Firefox wuxuu ku keenayaa pop-up message-kan ayuu ku keenayaa, kadibna save file ayaa leedahay. waa kana uu soo qaadayaa, inta uu ka dhammeynaya ayaad sugaysaa. waa isku soo laabanayna video aan boos leeyahay. Okay, hadda wuu dhameeyey. halkan ayaad click siinaysaa, kadib meeshii uu ku save gareeyey ayuu ku geynayaa. halkaas double click leedahay, run iska xirkaa. dawuu install gareynaa, laakiin aniga wuu igu jiriyaa, saas awgeed waa iska kansalayaa. marka waa wadaysaa ilaa next ilaa finish aad ka tagtid waa wadaysaa. anigu wuu igu jiraa, waa iska kansalayaa. exit setup. okay, cancel kana exit setup. okay, wuu kusoo degay. markuu kusoo dego marka wuxuu ku gelayaa start menuga ayuu ku gelayaa isagoo magac kala wato. wuxuu kusoo gelayaa magac uu kusoo gelaya waxa waaye Tech Smith. kaas ayaad click siinaysaa, kadib Camtasia Studio 8 ayaad ka dooranaysaa. markii aad ku dhufatid ka waxaa kusoo kacaya labadan ayaa kusoo kacaya, kan oo video editor-ka ah iyo kan oo recording ah. labadaas ayaa kusoo kacayaan. labadaas markay kusoo kacaan kadib markii aad kicisid wuxuu ku keenayaa dialog box ayuu ku keenayaa. record the screen aad leedahay. record the screen markaad tirahdid wuxuu duubayaa screenka ayuu duubayaa. okay, markii aad dhameysid kadib videoskii markii aad tirahdid stop markaad tirahdid wuxuu ku keenayaa stop markaad tirahdid wuxuu ku keenayaa videoga duubnaa ayuu ku keenayaa, kadibna dhinaca editing-ka ayuu u dirayaa. marka waa intaa iyo waxyaalo badan oo ay ka mid yihiin cloudiska. haddii aad rabtid falaarahan oo kale waa kaasa falaarahan oo kale cadaalad qoraal aad qoraysaa. waa kaasa select all ayaad leedahay, waad weyneyn kartaa, inta aragtida ayaa ka dhigi kartaa. kalarka shaartida iyo meesha aragtida ayaa gei kartaa oo bedeli kartaa. calaamadaha kale waxaa ka mid ah kuwan waa taasi waa cloudiska. waxaan o dhan waa isticmaali kartaa. haddii aad qoraal rabtid calaamada saaxeed waa taa, calaamad falaarti waa taa.
kuwaan waxa waaye shapes ayaa la yiraahdaa. qoraalka waa kani waxa waaye bular waa bular, macnaha markii oo shayga wejiga qofka ama shay wax la qarinayo kale waxaa la isticmaalaa kan ayaa la isticmaalaa. kaba soo qaad hadda waxaan sameyneynaa text ayaan meeshan ku sameyneynaa. tusaale waaye kan text ayaan sameyneynaa. borderka okay, effect, style, okay. waxaan rabnaa marka maadaama ay baasha ay madow tahay, qoraalkana madow yahay, qoraalka ayaan cad ka dhigaynaa. baas horta waan dooranaynaa, kadib qoraalka ayaad caddaan ka dhigaysaa si loo arkana waa weyneyneynaa. okay, waxaan rabnaa marka qeyb ka mid ah qoraalkan ayaan rabnaa inaan micnaha saarno bular, inaan saarnaan rabnaa. waa kaasa qoraalka qeyb ka mid ah ayuu saaray. inta waxa ku jiro qofka sameeye maayna cid kale ma arki karto. waa yaray kartaa, waa dheeray kartaa, ilaa meeshaa sidaa ka dhigi kartaa. haddii aad qoraal kale aad saartid kan ayaan ka qaadaynaa. okay, qoraal kale aan saaraynaa. okay, kan sidiisaba waa soo dheereysay, weli wuu ku daba joogaa. intaas kore ayaa haddana kuwa qarsamayso ilaa markii bahalkan uu halkan yimaado. wixii ka dambeeyo qoraalku wuu kusoo baxayaa. soo ma jeedid oo wax calaamada ma ku tusaayo. baash falaartiyo socod kaligeed ay arkaysaa, laakiin highlight haddaad tirahdid dhibicdaas jaalaha ayuu saarayaa. kan waa ringi, waa sida faraatiga dhibicda guduudka ayuu keenayaa. kan wuxuu keenayaa waa kaasaa isagoo ku muuqda qaabkii uu sameynayo. halkan ka eeg ringi ayaad leedahay, calaamadaas guduudka oo dhibicda ayuu keenayaa. haddii aad rabtid raab wax oo jiidaya camal ayuu ka dhigayaa. kanne wuxuu ka dhigayaa noocan kale ayuu ka dhigayaa, dhibic roob da-eysa camal ayuu ka dhigayaa. okay, waxaa u baahan tahay marka cloudiska oo kale. kan waxyaalo badan ayaa lagu sameeyaa, waa effectiyo badan ayuu leeyahay. kan oo kale markaa isticmaashid kan oo kale markaa isticmaalaysa waa kaasa, saas ayuu kugu calaamadeynayaa. saas ayuu kugu calaamadeynayaa. macnaha iftiin zaaid ayuu kugu yeelayaa. haddii aragtid xarfahan oo kale control taabo iyo control v iyo macnaha markii oo macnaha keyboardka oo shayga laga tusayo kale, kuwan ayaa la isticmaalaa. marka qoraal aad sameynayso kuwan ayaa isticmaalaysaa. tiidaas weyn ayaa tegaysaa, kadib ayaad wax ku qoraysaa. markii oo macnaha aad rabtid painting oo kale, shay aad rabtid inaad calaamaysid oo kale, sidaas oo kale ayaa u taabanaysaa. calaa kulli xaal waa kaasi waa dhinaca qoraalka ah. remove haddii aad markaa ku daraysid waa kaasa. okay, waxaa rabtaa inaad ku dartid visual properties. kaba soo qaad qoraal oo kale ayaa rabtaa, qoraal soconayo oo kale ayaa rabtaa. qoraalkii ayaan ku horta keenaynaa.
kan waan tiraynaa delete. Okay, qoraalka waxaan dhiganaynaa halkan, halka ku noo joogay. Okay, halkan iska dhex daa soo laabo. traaga adiga aad oo wax dhigi lahayd ayaad aad macnaa calaameynaysaa, kadib qoraalka ayaad soo dhigaysaa, tiida ayaad taabanaysaa. qoraalkan hore waan ka bixinaynaa, waxaan ku qoraynaa kusoo dhawaada casharkan ku saabsan softwareka Camtasia saasay u qorataa. Okay, qoraalkii ayaad dhigatay meesha. Okay, meeshaan rabnaan dhigi karnaa marka. kan waa weyneynaysaa, saas ayaad dheereynaysaa, macnaha wuxuu ku noqonayaa markaas hal sadar ayuu ku noqonayaa gedigiisba. Okay, waxaan rabnaa marka qoraalkan inuu noqdo mid soconayo ayaan rabnaa. Okay, waxaad leedahay marka visual properties ayaad tegaysaa. markaa visual properties tagtid, horta qoraalka aan nadaamsano, calaameynaysaa isagoo dhan. markaa calaameysid, okay, hadda 28 ayuu noo joogaa. qoraal la arki kara ayaan ka dhiganaynaa, guduud oo kale ayaan ka dhiganaynaa. Okay, visual properties ayaad tegaysaa, add animation ayaad leedahay, kadib waad soo jiidaysaa maya. markaasaad tiraahdo kadib kii ayaad soo wadaysaa, qoraalkii ayaad soo wadaysaa, waad soo jiidaysaa ilaa salkiisa dambo. Okay, markaasaas tirahdid halkan ayaad ka jiidaysaa haddana. Okay, marka play aan dhahno, bal aan aragno bal wuxuu sameeyey. no, gadaal ayuu ka keenyay, raalli ahaada. kan waan tiraynaa, delete ayaan lehaynaa, kan ayaan soo jiidaynaa. kana tir, kana halkaa gey. Okay, tusaale ahaan ayaan hadda ka rabnaa, baliyaan dhahna bal. waa kaasa qoraalkii isagoo soo socdo, wuxuu ku leeyahay kusoo dhawaada waa kaasa waa isagoo socda. waa kan uu kusoo dhawaada casharkan ku saabsan softwareka Camtasia ilaa uu ka dhamaanayo salkiisa dambe. wuxuu noqonayaa qoraal socda ayuu noqonayaa. waxaa rabtaa marka sidoo kale waan copy ayaan leenahay, halkan ayaad ku dhufanaysaa, paste ayaad leedahay. okay, ilaa kasarkan oo halkan ka yimaado, haddii kale wuu kuu dul saaraya. okay, kan aan yarayno saan u aragno waxoo dhan. waa kaas qoraalka wuu naga dhamaaday. okay, hadda paste ayaad leedahay, ku dhufakaa paste leh.
warning, select media timeline in order to paste the animation. Okay, media dooro. Okay, media dooro kadib bal paste dhe markaan ku fiiri. Okay, waa meel qaldan ayuu noo geeyey, ka bixi ka. Okay, delete dhe ka. Okay, waxaan dooranaynaa marka textiga ayaan dooranaynaa. Text ayaan dooranaynaa. Okay, waa kan, waa sida aan rabnay. Okay, okay, halkaa geey haddana. Okay, kan yaray. Markaan farta ayaan bedelaynaa iyadoo dhan. Waxaan ka dhigaynaa 28, 36. waxay noqotay waaweyn ayay noqotay. iska dhan wada dhamay. halkaa geey. Okay, kalarka bedel, waxaa ka dhigtaa blue ka dhig. Okay, markay saas tahay marka waxaad leedahay visual properties, add animation. Okay, soo jeedaysaa. Okay, hadda jiidaysaa marka. Okay, intaan kasoo bilaabaynaa marka. waa kana marka qoraalku wuu noo socoyaa. waan boobsiinaynaa. qoraalka waa kaasa, kii wuu dhamaaday. kii kale ayaa soo baxaya haddana. waa kaasa, kii kale wuu soo baxaya isagana, isagoo farti buluug ah. haddii speedka aad badinaysid, kuwan ayaad jiidaysaa, gadaal u celinaysaa, speedka wuu badanaa, macnaha si dhaqsiga meesha ku maraya.